waxaan joognaa magaalada Asbuli xabaalaheegi qabriga iminkaan arkayo waa nin 20 jira waqtigii la aasin qofna ma garanayo laakiin wax lagu garanayaa calaamadaha meesha ka muuqda cidii uu hayo qoladii uu haana waxa lagu garanayaa dhagax calaamad ku taala ee sida waxa weeyaan waa noocayo kale waa furlabe reenuur ma furlabe reenuur weyn ninkaas aha 20 jirna uu ahaa xaas ma lahayn xaasna ma leh laakiin waqti la aasay iyo cid la aastay lama garanayo ninkan Allah u naxariistay wuxuu ahaa nin waayeel ah oo odaya gamaad buu leeyahay oo reer buu lahaa gamaad waxa leedahay 4 iridood maadaama 4 iridood iyo qibladii leedahay irida labada iridood waxa ka muuqda dhagaxyood kale irid kale halkaas ku daaya laba iridood oo cirifkan oo irida waxa marka ka dhigan tahay wuxuu lahaa 4 xaas Allah u naxariisto dul yaalana marka dhagax dul yaalana waxa sheegaya calaamadaha cidii uu ahaa kulka macallin weeyaan macallin ninku ahaa macallin wadaxku macallin ma macallin geed cismaan geed cismaan ma macallin waliba oo geed cismaan ilaahay u naxariisto kulka dadka maxay hayday xabaalahan lagu aasayo hadii uu maxay hayday uu leeyahay hadii uu qofku 20 jir uu yahay waxba gamaad ma leh gamaad ma leh kulka hadii uu hal xaas haduu leeyahay hal kidin uu leeyahay oo gamaad buu leeyahay gamaad weyn intuu leeyahay hal irida leeyahay 4 haduu leeyahay 4 buu leeyahay kulka haduu mid leeyahay haduu laba leeyahayna laba iridood buu yeelanaya kulka kanis 4 buuha qabriga Allah naxariistay oo qof haweena laakiin inay hooyo caruur lahayd calaamad kuma taalo ama xaasay baasha dusha gamaan geedana wax loogu sameeyay inay bahalo in baa qarandiga ma qarandiga xabaalaha faqda iyo ilaalisa ku dawata hadii qarandigu u arko baasha laga geedka lagu tooray ana xabaasha la dul dhigay habeerata mafaqanay oo ka wacanaya qofkan qof nin dhalinyaro reemuse geysalay calaamad ku taala oo sheegaysa waana ka nin dhalinyaro oo guursan buu ahaa samayn annagu lamaan joogin markii la aasay waxa lagu garanaya soo calaamada iyo gamaad uu lahayn qabriga waxyaa dhagax la dul dhigay qabrigan qofka ku jira Allah u naxariisto qof haweena gamaad weyn oo dusha oo dhan soo wareegsan wareeg oo dhagax oo yar aasantay bay leedahay waxa sheegayaan labada goobe hore waa maxay waa ciyaalkooda carruurteedii ma la aasiin mise carruur bay leeyihiin waa lagu garab waa calaamad bay ka dhigan waa carruur dhintay way iska noolyihiin carruur inta bay intay ka dhigan lahayd weeyaan calaamadahan marka bis carruur bay ka sheegaysaa laba carruur marka laba meelood gooban la sameeyay saasa goobta iyo goobta kale ka horeysa oo laba ciyaal inay lahayd bay xaqiijinaysaa ayaa sheegaysaa ilaahay u naxariisto ninkan oday ahaa oo Allah u naxariistay laba xaas leh gamaadii marka la soo wareejiyay qabladii iyo waa ka xaaskii koobaad kadinkiisii laba kadin buu lahaa ka dhintay reerku iyo kadin kale ka muuqda sumadiisana ku yahayna qolada uu ahaan Allah u naxariistay furlaba udax gubooyaan dhulka dhow ku dhig kolka dhulka iswadarin
kolkaas ummaddu labadeena dahay